hay-adda dambi baarista ee CID-da ayaa sheegtay inay gacanta ku soo dhigeen rag sameynayay dukumiintiyo dowladeed oo been abuura. Cabduqaadir Cumar Cabdulle Vidka ayaa warkan inoo soo koobaya. hay-adda dambi baarista Soomaaliya ee CID-da ayaa sheegtay inay gacanta ku soo dhigeen rag ku howlanaa sameynta dukumiintiyo, baasaboorro iyo waliba waraaqadaha ka soo baxa xafiisyada dawladda Soomaaliya. raggani ayay sheegtay hay-addu inay ka soo qabteen gudaha suuqa Bakaaraha gaar ahaan Cabdulle Shideeye. taliye ku-xigeenka hay-adda dambi baarista ee CID-da Soomaaliya Bashiir Abshir Geedi ayaa warbaahinta kaga warbixiyay raggani iyo waxyaabihii lagu soo qabtay. alaab looga soo horjeedo qarannimada iyo dawladnimada Soomaaliya oo falsification oo lagu soo qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan Bakaaraha goobta loo yaqaan magaceeda Cabdulle Shideeyaha. waxaa iska kaashaday arrintan hoggaanka waxaa iska kaashaday hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo runtii yacni ruux warqado been abuura inuu ku dhoofo rabay ka soo qabtay aeroboortka Aadan Cadde International. ruuxaas baaristii aan ku samaynay kadib waxaa noo furmay kiiskan meeshii uu ka yimid ood arki doontaan qalabka ee lagu soo qabtay iyo dadkii waxaas ku shaqaynayay oo alaabtaas falsificationka samaynayay iyo qalabkoodii. sidaasoo kaleeto waxyaalaha been abuurka oo la sameeyey waxay isugu jiraan dukumiintiyada xafiisyada dawladda ka soo baxa intooda badan, jaamacadaha Soomaaliya shahaadooyinkooda, maamulka gobolka Banaadir warqadaha dawladda hoose, sugnaanta iyo dhalashada, caafimaadka. wiilasha waxaan ka shaqaynaya shirkadaha ka shaqaynaya odayada kabaniyada u samaystay adeerayaalow meeshaan ha ku kadsoominina, iska burburiya makiinadihiinna iyo qalabkiinna kuwa meelaha kale ku haystow si kale oo xaq ah oo xalaal u adeegsada. ummadda wax ku bara, ummadda ku wacyigeliya, ummadda xaqa ugu sheega, baadilka iyo dulmiga aad ku samaynaysaanna ka dhex baxa. haddaa ka dhex bixi weysaan dawladda Soomaaliya dawladnimada aad maqlaysaan waa xoog la sharciyeeyey. xoogga la sharciyeeyey dadka inay fuliyaan laga rabana hoggaanka baarista dambiyada CID-da u horeeya. waa soo qabanaynaa, waa la xisaabtamaynaa, waa baaraynaa, hay-adaha ku shaqada leh ee garsoorkaana u gudbinaynaa. ugu dambaystii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha agaasimaheeda iyo shaqaalaheeda isku duuban iyo qaybta guud taliyaheeda iyo ku-xigeenadeeda guud ahaan oo isku duuban iyo hoggaanka baarista dambiyada CID guud ahaan taliyahooda iyo ku-xigeenadooda saraakiishooda ciidankooda isku duuban oo runtii aan dhihi karo shaqadan si saddex geesood ah isaga kaashadeen. taas waxay ku tusaysaa wada shaqaynta buuxda